gobolka Banaadir oo ka shiray ka hortagga COVID-19 xilli kiisas badan laga helay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waxaa qodobkaasi loo soo diyaariyay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan hadda magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa qaab online u shir gudoominaya kulamo degmooyinka gobolka Banaadir oo toddobaadkii mar la qabto kaasi oo lagu hadlayo horumarka caasimadda duq magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku wada xiriiray mid ka mid ah aalada ay bulshada isticmaasho ee Skype-ka waxaana gabi ahaan si gumeel gaar ah loogu ekeeyay shirarkii isku imaatinka ahaa sabab la xiriira cudurka COVID-19. shirkaasi ayaa intiisa badan looga hadlayay ka hortagga caabuqa coronavirus iyo wacyigelinta bulshada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa warbaahinta la xiriiray iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kala degmooyinka gobolka Banaadir Cabdikariin Xuseen Yaxye Cabdikariin Habi Radio Wadani TV.